marka waxa weeye aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa halkan laba wasiir baa noo jooga labadii wasiir waa magaaladii waliba midna wuxuu ku dhashay Ceerigaabo midna Yuflo ku dhashay ilaah baan ugu mahadnaqayaa maanta Yuflo iyo Ceerigaabona waa isku mid marka hadalkii waxaan ku soo ururiyay hadalka waxaan ku soo ururiyay badin maayo oo miyaan badiyeba oo miyaanu meelii taabanayba bal hadda dhageyso waxana go'aan madaxweyne waxana dila maalin walba Ceerigaabo halka taagan Ceerigaabo baas qorxidishay Ceerigaabo fadhi dilay saacadaan in helo waa idinka istiraxayna bas waa dhameeyay insha Allah waa khayr alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam dabadeed ilaahay baa mahad leh waxaan soo dhaweynaynaa oo maanta gobolka Sanaag guud ahaan ku soo dhaweynaynaa madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan wafdida uu hogaaminayaba waxaanu leenahay
mudane madaxweyne ku-xigeen adiga iyo wafdidaaduba ku soo dhowaada gobolka sanaag halkanna waa degmada yufle dad badan oo ceergaabo joogaana wayna sugayaan aad iyo aad ba u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah waxaan ku soo waftida heerka qaran uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dalka jamhuuriyadda somalilan iyo golaha wasiiradaba amiin baynu taagannahay ilaa xalay madaxweyne dadku halkan bay heegan ku hayeen farxad weyn bay noo tahay inaanu maanta ku soo dhoweyno hoggaanka xisbiga kulmiye iyo madaxweyne ku-xigeenka qaranka ahna musharaxa madaxweyne ku-xigeen degmada yufle aad iyo aad baan ugu faraxsanahay mudane madaxweyne inaan kugu soo dhoweeyo degmadii aan ku dhashay aan ka dhashay dhammaan dadweynaha deegaankan iyo dadka reer yufleba diyaar bay ku yihiin xisbul xaakimka kulmiye xukuumaddaba waa dad ay ka go'an tahay inay taageeraan inay berber istaagaan hiil iyo hooba waa ula diyaar aad iyo aad baad madaxweyne ugu mahadsan tahay wakhtigaaga qiimaha badan aad siisay salaadiin badan baa joogta dad badan baa jooga xaggii ceergaabana waa laynagu sugayaa maxamed wacala ali sidina maxamed madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan saylici maxamed kaahin wafdiga wasiirada iyo cid walba leh ma wadwadi kare wala daalin waxaan ku soo dhaweynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa dabadeed waxa weeye waxaanu idinku soo dhaweynaynaa wasiirkii xaaji cali cadam in halku joogaa difaaca ما ودودي كرهوران uga cudur daartay kullukum assalaamu calaykum ku dhan yahay ta kale waxaan leenahay waxaan kugu soo dhaweynaynaa adiga waftigaaga gobolkii Sanaag iyo degmooyinkiisii kala duwan ku soo dhow inta dabadeed sida aad nagu aragto degmada Yufle waliba waa cadhaysanahay hadal caati waalide waxaanu ka cadhaysanahay laba eray taransir baanu naado dawladdu waana sii dhaaftaa waana soo dhaaftaa biyaha waa noogu ballan qaadaado haraad xun baan nahay haraad xun baan nahay nin walba aniga ii yimaado yiraahdo halka saylici doonaya waxaan oo jeeday saylici kalaas meet bawlna wuu iga tagi jiray suldaanka halkan taagan cid hore uma soo bixin waa suldaankii guud ee mas isagana muuse bixi bay kalaas mid tahay isaguna waxaan u malaynayaa inaanu muuse bixi cidna dhaafsanay barakaatu hadalku ma badnaanayo xaggana baa lana ku sugayaa gabca furan baanu ku soo dhaweynaynaa madaxweyne ku-xigeenkeenna iyo gudoomiye labaad ee xisbiga kulmiye iyo wafdiga la socda wasiiradaha waxaan idin leenahay gobolkii laga tafiirmay ee Soomaaliya ka tafirantay oo aad taariikhdiisa haysaan ku soo dhawaada qalbi furan degmada Yufle ee sida aad u sharafta badan leh ee wadaneeda leh ee walaalnimada leh qiimaha leh nagu soo dhaweysay aad iyo aad baad ku mahadnaqaynaa marka labaad waxaan halkan u soconaa maanta wada ogtihiin waxaan u qabanay diyaar u tihiin dhagina ka baatay diiwaangelintii oo diiwaangelin qaran inay idinku dhiiri gelino ama idinku boorino in nin kastoo muwaadin ka mid ah oo reer gobolka Sanaaga inay u diyaar garoobaan si ay isku diiwaangelin lahaydeen u diyaar garoodaan oo ka wada hawl galno ilaahay aan ka rajeynino in si nabada ay noogu dhamaatay muddada yar ay soconayso waa xaq dastuuri ah waa xaq muwaadin kasta idinka ka mid ah leedihiin aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa soo dhaweynta ballaaran hadalka intiisii badnayd maarteen waxaan la sugayaa degmada weyn ma la sugayaa insha Allah aad iyo aad baad u mahadsantiin waan salaamaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh